gudoomiyaha xisbiga yool qaran ahna musharax madaxweyne Siciid Cali Axmed Qurbaawi ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya dagaalkii magaalada Boosaaso ku dhexmaray ciidamada Puntland iyo kooxda Al-Shabaab waxaan ugu horreynba fariin u diray maamulka Puntland oo u soo jeediyay in la adkeeyo ammaanka Puntland gaar ahaan magaalo ganacsiyeedka Boosaaso. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. intii ku dhimatay Boosaaso dalkooda difaacisay ilaahay jannada firdaws ha geeyo, intii dhaawacmatayna Allah ha u boqolayaan leeyahay, amniga ha la adkeeyo waan leeyahay. maamulka Puntland amniga ha la adkeeyo, dhammaanna waxaan leeyahay shacabka ku dhaqan deegaanada amnigiina adkaysta. Siciid Cali Axmed Qurbaawi waxa uu fariin u diray musharaxiinta mucaaradka isagoo ugu baaqay in ay gurmadaan dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo xanuunku halakeeyay kana dheeraadaan banaanbaxyada rabshadaha wata ay dadka ugu baaqayaan. waxaan ahay musharax, waxaan rabaa in aan la hadlo musharaxiinta ama midowga ha noqdaan musharaxiinta kaleba. waxaan leeyahay maanta kursi inaynu ku dagaalano ma taagnee, dadkeennan dhammaanaya, qaar abaari hayso qaarna xanuunku laynayo, aynu u gurmano oo dhaqaalo ku bixinno. marka kaleba dhaqaalaha waynu ku bixinnaa, xildhibaanada waynu ku bixinnaa, oo laaluush baynu bixinnaa. waxa aynu kaloo dhaqaalaha ku bixinnaa banaanbaxyada aynu hadda ku bixinno dadkeennan xanuunku laayay iyo kuwan ay abaaruhuba hayaan, aynu dhaqaale ku bixinno si aynu xag alle khayr uga helno, dadkeennuna u ogaadaan inaynu nahay dad ka naxaya. balse hadda waxaad mooddaa dadku inay noo arkayaan inaynan ahayn dad ka naxaya, aynu nahay dad raba uun danahooda inay ka fushadaan. war aynu dadka u gargaarno oo wax u qabanno, oo kursigan iimaanka ina ka qaaday aynu meel iska dhigno, oo xaaladdu markay kala degto aynu markaa tartankeeni galno. ta labaad, waxaad mooddaa midowga musharaxiinta ama musharaxiinta hadda jirtaa inay cabsi badan jirto oo la la'yahay baa nin la tartama madaxweynaha hadda taagan. war annagaa diyaar waa lana tartameennaa, kalsoonina isku qabnee. waddanka qaska ka daaya, annagaa diyaar waa inaanu la tartanno, kalsoonina isku qabno. waxana waa wuxuu ilaahay bixiyo weeye, wuxuu ilaahay bixiyo, qofna gacanta kuma hayo. mulkiga awoodda ilaahay baa iska leh. ee u soo diyaargarooba inaynu la tartanno, u soo diyaargarooba. ta labaad, waxaad mooddaa dee midowga musharaxiinta arrintoodiiba inay qabyaalad noqotay. sababtoo waxaa caddaynaysaa markanay leeyihiin ra'iisul wasaaraha xaqa ah, oo madaxweynuhu miyaanu xaq ahayn. madaxweynahaaba dee ra'iisul wasaaraha soo doortaye, kii soo doortayna daaha dabadiisaa la gelinayaa, kii la soo doortayna sharci baa laga dhigayaa, kii soo doortayna sharci daraa baa la leeyahay buu meesha ku joogaa oo sharci ma haysto. quracaas wax caqliya maaha, wax dad waaweyn oo mas-uuliyiina ay ku hadlaanna maaha. filinkaasu aad buu ininka xumaaday, filinkaasu waa ininka gubtay. ee arrinta dejiya, doorashana aynu u diyaargarowno, cabsidana iska daaya. maxamed cabdilaahi farmaajo waa lala tartami karaa, wayna la tartamaynaa. haddii aynu calaf ku leenahayna waynu helaynaa. siba madaxdii horena wax waad u soo qabateen oo madaxweyneyaal baad u soo noqoteen, haddana insha allah waad noqon doontaane. cabsida iyo baaninka iska daaya oo soo diyaargarooba, aynu ninka la tartanne. maamulkana dawladda sii daaya lugaha aynu haynaay, lugaha aynu sii dayno si doorasho loo galo, waddankuna hore u socdo, aynu lugaha sii dayno.
ugu dambeyntii gudoomiyuhu wuxuu fariin u diray shacabka magaalada Muqdisho ugu baaqay in ay meel uga soo wada jeestaan adkeynta ammaanka magaalada Xamar. dowladda federaalka waxa aan leeyahay amnigu baryahan hoos buu si dhacayay amniga ha laga shaqeeyo dadkana ha loo shaqeeyo siiba dadkan xanuunku laayay ha loo dadaalo dadka u dadaala baan leeyahay idinka dowladdiiya dadka u dadaala meel fiicanna waxaad ka wadaane Allah in la qabtee dadka u dadaala waxa aan halkan ku soo gabagabeynayaa oo aan rabaa inaan la hadlo shacabka Muqdisho nabad baad haysataan dhiig badan baa u soo daatay waqti badan baa la geliyay dawlad iftiinkeena waad haysataan ee ilaashada banaanbaxan lagu baaqayana waxdan oo inay ku jiraan ma jiro waxdan oo reer Muqdisho inay ku jiraan ma jiro waxdan oo Muqdisho oo burburta inay ku jiraan ma jirto nin dalle oo baadantiisa watee nabadiina ilaashada nabad baa naasna looga leeyahay nabadda Muqdisho taala ilaashada waxa aad dhibtu ay u dhacaysaa waxa weeye kalsooni baan jirin musharaxiintayada kalsoonidii baanu la'nahay inaanu u diyaar garoon inaan doorasho galno sababadana way jiraan dagaalihii aanu dowladaha shisheeye ka heli jirnayna waa la laayahay runtaan sheegay anigu lama hayo sababaha soo miidhan baa jira iyo kuwa kale markaa shacabow waxa aan leeyahay nabadiina ilaashada Maxamed Bashiir Nuur Greek Ariel TV